السلام الله عليكم. سوري wada asxaabta qaaliga ah dabcan waa Xaydar. Waxaan rajaynayaa inaad wanaagsan tihiin dabcan dhammaantiin. Insha Allah waxaan rabnaa inaan isku diyaar garowno usbuuca soo socda si aan uga faa'iidaysano dabcan lacagaha dabcan aan u aragno inay fursad leeyihiin dabcan. Muddo badan waa soo wada soconnay masha Allah. Dad badanna way ka faa'iideen yacni maxaa la dhahaa programkan aan wado dabcan taasna faa'iido ay tahay dabcan inaan arko dad mataqaanaa walaalahaya oo profit la sameynaya dabcan. Taasi waa waxa aan rabay dabcan. Isbuucii dhaweyd masha Allah lacago badan baa dhaqaaqay dabcan sidii aan la wadaagayba. Inkastoo aan furay Telegram free dabcan oo group ah kaas oo aan kula falanqeynayo lacagaha dabcan. Waxaa jira siyaabo badan oo igu kalifay taas oo ay ka mid tahay in dadka qaarkood ay private ay usoo diraan dabcan inkastoo aanan eegin oo aniga mataqaana mashquulkaygu badan yahay. Laakiin waxaan go'aansaday dabcan inaan furo hal Telegram yacni public ah. Dabcan dhibaatada waxaa weeye yacni waxaa jira wax la dhaho qofka isku yacni focus ma tihiin oo waxaa jira adii lacaga eeganaysid qof kale lacag kale eeganayaa jira. So muhiimna ma aha taas inaan isku hal lacag eegano. So dadkaas oo kale baa u baahan sidoo kale in tala aan ka siiyo dabcan. Sababahaas ayuu kalifay sababahan u furay dabcan. Waxaan arkaya wax la dhaho arday lacag aan listiga ku jirin ii soo diray oo leeyahay saaxiib lacagtaas bal ii eeg. Qaabkaasaan u sawiray qaabkaasaan u jihiyey dabcan. Adigiina dee lacaga kala focuska kuu saar marka dhibaato weeye. Marka taasaan u furay sababahaasaan u furay masha Allah. Inaad yacni asxaabtii ii soo diray maxaa la private maxaa la dhahaa messageska inay geli doonaan dabcan si lacagaha aan yacni timeka aan yacni badanaa aniga caadi ahaan oo kale mashquulaan ahay oo dabcan fursadii waxaasan eegaya. Laakiin dee time waxaa jiri doonta insha Allah aan soo geli doono dabcan lacagaha aan xilliyada isdiyaariyeen oo kale aan ii sheegi doono xilligaasay lacagtani geli leedahay dabcan. saasay sameynaysa waxaa jirta laba lacagood hadda soo diray oo ahayd dabcan NCD CHF iyo CHF JPY. Labadii lacagood baa dabcan qaabkan u dhibnay noqdeen oo dabcan double bottom ka hoose soo doontay dabcan oo saan ka rajaynayay ahayd dabcan. Lacagta dadka CHF JPY lacagtay waxaan dhahay lacagtay dhahayn CHF JPY dad badan baa lacagta ku khasaaray oo galay. Laakiin anaga waa ka tirtoonin dabcan oo dabcan haddaad fiidiyoga dib ugu laabatid xilliga aan qaadan ku iri dabcan waad dareemaysay. Ma rabo inaan hadalka badiyo dabcan insha Allah Telegramkaas wada arki doonaa. Lacagaha aan gaadayo isbuucan day kasta xaaladeeda dabcan xaaladeedana muddo la socon lacagtan iyo qaab dhismeedkeeda dabcan u rajaynin halka ay imanayso dabcan niyadda xitaa soo baxay aan ka baqayn dabcan oo aan idinla wadaagayo wax waliba dabcan. Taasna waxay ahayd waxa weeye structure-ka bay ahayd. So haddii la dhaho yacni niyadku ma saameeya structure-ka dabcan maxaa dhahaysaa waa dareemay dabcan lacagtan wuu kala leexin lahaa already waxay ka geyn lahaa lacagtan dadka badankood xitaa dadka professionalka waxay ka sugayaan wax la dhaho inay lacagtan ay baadiso. Laakiin maxaa dhacay in la adeecay dabcan. Maxaa kuu cad sidoo kale structure-kan inuu yahay structure saxan oo dabcan side u saxan baa kuu cadaanaysa sidoo kale. Maxaa laga rajaynayaa trace domain meeshaas samayso dabcan already inay soo dhacdo 9 inkastoo hadda ay joogto daily time frame ka haddaad tagtid maxaa la dhahaa ama maxaa la dhahaa weekly time frame-ka inkastoo ay joogto wax la dhaho maxaa la dhahaa double bottom ka hoose ay joogto dabcan markaad egtid calaamad ay ka kala laaban karayso ay absi aadi karayso dabcan. Sidoo kale waxyaalaha noo sheegay waxyaalahaas ka mid ah lacagtan sii kor aadi karayso weekly time frame-ka. Sidoo kale one hour time frame-ka iyo 4 hour time frame waxay noo sheegaysaa lacagtan hadda ay yacni maxaa la dhahaa ay dabcan impasse ku socoto. dabcan halkan haddii impasse ku socoto means ay sii dayn karayso dabcan ay absi aadi karayso ama ay correction ka bilowdo haddii correction ka bilowdo means ay correction tagto dabcan correction kale meeshan ka bilowdo lacagtan ay soo dhici karayso xigay imsan waxaan ka sugnaa lacagaha kale ka sugnaa shada selka iyadana lacagtan dabcan aan isbuucii wada qaadanay
maxaa laga sugaya halkan in qaab correction ku timaado ama double barka hoose inay timaado dabcan qaab correction ku timaado already lacagta kale horta tijaabkaada iyadana qaab noocaas ka suga sidoo kale lacagtan GBAUD lacagtan side wagt muhiim weeye lacagtan side wagta sababta u eegaysa waxa weeye dabcan lacagta hadda double bar hoose samaysay hadda adeegto wax dhaho forward time frame ka sidoo kale daily time frame ka structure ay ku jirtaa dabcan inay soo dhaqaaqdo already structure yar meelaha ka samayso kadibna all the way ilaa halka timaada laga rajaynaya insha Allah isbuucan caadi ahaanta waayo sidoo kale waxaa laga yaabaa meeshan caadi ahaantan wax yar inii sheego dabcan waxaa laga yaabaa meeshan markay timaado inay xoogaa meeshan ku rafataa laga yaabaa so sababta ugu rafaysan waxa weeye meelahan waxa ku jira wax la dhaho you know level baa ku jira retrace ku samaynayso trailing kan sidoo kale head and shoulder waa dii xaaladdan kaaga muuqda caadi ahaanta even xitaa haddaad soo qaadatay kan oo kale fiiri intan oo kale haddaad soo jirtid oo crop dhexdid dabcan haddaad soo jirtid oo intan aad crop dhexdid dabcan haddana flip aad ku samaysid dabcan haddana aad flip aad ku samaysid dabcan waxaad ujeedaa in qaab dhismeedkii uu waadaxa u yahay waxaad ujeedaa qaab dhismeedkii oo waadaxa inuu yahay dabcan correction galaysa kadibna all the way ay soo dhici karayso caadi ahaanta trendkiisa u ixtiraamaysa eeg idina wax cajiib wey dabcan oo laga sugayo insha Allah lacagtan kaasi waa taas lacagta NZD CHF yadana lacagtan please yadana isha ku haya waxaa laga yaabaa in all the way ay laabto waayo waxay joogtaa waxa dhaho laba taabashay samaysay taabasho saddexaad trail laba trail taabanayso inay bartaa ka sii dayso already structure-ka means halkan markuu structure-ka la jabiyo structure korkiisa ka dhici doona miska qaado ka qaadanina please ha ka qaadanina wax dhaho structure-keeda jabsan ha ka qaadanina waa in candle momentum loo ka baxaa kadibna all the way qaataa iyadana qaab noocaas oo kala sameeya ma sii socon karaysaa of course sii socon karaysaa dabcan inay structure kale soo laabtaa ka timaado haddana structure kala samayso dabcan oo structure kale meel ay ka diyaarsato iyadana ay noqon karaysaa iyadana mar waliba isha ku haya oo mar waliba in la soo wadaaga insha Allah telegramka dabcan sidoo kale lacagtan iyadana muhiim weeye iyadana double barkii joogsa qaab correction clips lag dambeedana lacagtan ka eegta sidoo kale lacagtan iyadana suga maxaa laga sugaya lacagtan waxaa laga sugaya wax dhaho inay iyadana meeshan timaado dabcan inay meeshan timaado kadibna meeshan markay timaado kadibna all the way lacagta aab loo celiyo maxaa sabab oo wareegaynaa lacagtan NZD CHF ay isku jihayn isku qaab dhismeed isu jiho ida qaab correction ay ku jirtaa sidoo kale NZD tan waan soo sheegay haatan waqti hadda NZD JB waa iyadana qaab noocaas ka sugaynaa sidoo kale ka CHF iyadana waxaan ka sugaynaa wax dhaho inay meeshan qaab correction ku timaad kadibna all the way iyadana yaab sii aado macquul ma tahay inaad ka tagto yes boqolkiiba yani 90% way soo dhacdaan leenahay baalkii trail iyo maxaa lahaa flagani waxa laga yaabaa xitaa in all the way correction soo dhalata laga yaabaa iyadana lacagtan saaid bay muhiim tahay lacagtan iyo GBAUD labada lacagood waa lacagaha isbuucan insha Allah dhaqaaqi doona nine roulette waxay tagtay hal qof double top qaab correction ku tagtay iyadana soo dhicida laga sugayaa caadi ahaan iyadana saas insha Allah ka fila aada uma santiin asxaabta qaaliga saaid uma santiin waa inuu insha Allah isbuuca aada uma santiin waa